السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبيال muuqaalkeena maanta kusoo dhawaada muuqaalka hore waxaan idila wadaagay AI research siday u soo bilaabatay iyo sida AI companiesku ay u kala duwan yihiin maanta waxaan rabaa inaan kala wadaago 5 AI pioneers aad u baahan tahay inaad ogaato iyo waxyaabaha ay soo kordhiyeen fieldiga artificial intelligence soo dhawaada Jeffrey Hinton ninkan waxaa loo yaqaanaa the godfather of deep learning wuxuu ku dhashay December 6 1947 magaalada Wimbledon ee dalka UK waxbarashadiisa heerka sare wuxuu ku qaatay PhD-giisa cilmiga artificial intelligence AI sanadkii 1977 jaamacadda Edinburgh ee ku taala Scotland Edinburgh waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu caansan Yurub ee cilmiga AI ama cilmi baarista bit science-ka Jeffrey Hinton waa mid ka mid ah aasaasiyaasha iyo hormuudka deep learning iyo neural networks wuxuu si weyn uga qaatay horumarinta algorithmska kala ah backpropagation iyo contrastive divergence Hinton hadda waa professor emeritus jaamacadda Toronto ee dalka Canada halkaas uu ku dhigo una dhaqangeliyay cilmi baarisyo badan oo ku saabsan artificial intelligence sidoo kale wuxuu yahay la taliye sare oo ka tirsan mashruuca Google Brain waa wax ka mid ah waaxaha Google oo ku takhasustay horumarinta AI gaar ahaan deep learning Hinton wuxuu helay abaalmarin badan oo ay ka mid tahay Turing Award sanadkii 2018 oo ah mid ka mid ah abaalmarinada ugu sareeya ee la siiyo cilmi baarayaasha ku jira cilmiga kombiyuutarka taas oo lagu aqoonsaday shaqadiisa taariikhiga ah ee ku saabsan artificial intelligence qofka labaad waxaa la dhahaa Jan LeCun ninkan waxaa loo yaqaanaa the father of convolutional neural networks wuxuu ku dhashay July 8 1960 magaalada Soissons-Montmorency ee dalka France PhD-giisa ee computer science wuxuu ka qaatay jaamacadda Marie Curie University oo hadda loo yaqaano Sorbonne University ee Paris sanadkii 1987 jaamacaddan waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu caansan France ee cilmiga teknolojiyadda Jan LeCun waa hal abuuraha Linet iyo convolutional neural networks CNNs labadaas oo saameyn weyn ku yeeshay sida loo isticmaalo deep learning iyo sida ay kombiyuutaradu u fahmaan sawirada event muuqaalada ama wax kastoo kombiyuutarku uu arki karo Jan LeCun hadda waa agaasimaha cilmi baarista AI ee shirkadda Facebook halkaas uu ku hayo dadaalada AI ee shirkadda dhanka kale waa silver professor ee jaamacadda New York University wuxuuna ka dhigaa cilmiga computer science-ka labadan shifti waxay ka tarjumayaan saameyntiisa weyn ee ku saabsan artificial intelligence Jan LeCun wuxuu helay abaalmarino dhowr ah oo ay ka mid tahay Turing Award sanadkii 2018 waxay wadaagaan Jeffrey Hinton iyo Xu Bingyu abaalmarintan waxay aqoonsan tahay doorkiisii hal abuurka leh ee soo saarista iyo hirgelinta CNNs oo bedelay sida mashiinadu u arkaan oo u fahmaan dunideena qofka saddexaad waxaa loo yaqaanaa Xu Bingyu ninkan wuxuu ku dhashay 5 Maad 1964 magaalada Paris ee dalka France PhD-giisa cilmiga computer science-ka wuxuu ka qaatay jaamacadda McGill ee ku taala Canada sanadkii 1991 oo ah ka mid ah jaamacadaha ugu sareeya North America ee cilmiga kombiyuutarka Xu Bingyu waa mid ka mid ah hormuudka deep learning iyo neural networks isagoo si gaar ah ugu lug leh horumarinta generative adversarial networks ama wax loo yaqaan GANs Bingyu waa mid ka mid ah horumariyaasha GANs oo ah nooc ka mid ah shabakadaha neerfaha oo u saamaxaya mashiinada inay abuuraan sawirro cusub iyo xog cusub iyagoo ku saleynaya xogtii hore loo siiyay GANs waxay ka kooban yihiin laba shabakad oo isku soo horjeeda mid abuuraya xogta oo loo yaqaano generator iyo mid qiimeynaya xogta asna loo yaqaano discriminator kuwaasoo mar walba tartan ugu jira inuu midba midka kale ka fiicnaado Xu Bingyu hadda waa professor buuxa ee jaamacadda Montreal halkaas uu ka dhigo una dhaqangeliyay cilmi baarisyo ku saabsan artificial intelligence sidoo kale waa scientific director ee Montreal Institute of Learning Algorithms oo loo soo gaabiyay MILA oo ah mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee cilmi baarista AI ee adduunka oo dhan MILA waxay diirad saaraysaa horumarinta algorithmska cusub gaar ahaan kuwa la xiriira deep learning
Yoshua Benjiu wuxuu helay abaalmarino dhowr ah oo ay ka mid tahay Turing Award oo la wadaagay Jeffrey Hinton iyo Ian Lincoln. Abaalmarintan waxay aqoonsan tahay shaqadiisa taariikhiga ah ee AI, gaar ahaan horumarka uu ka sameeyey neural networks iyo deep learning. Qofka afraad waxaa loo yaqaanaa Andrew Ng. Ninkan wuxuu ku dhashay Abriil 1976 dalka UK. Wuxuu PhD-giisa ka qaatay cilmiga computer science-ka jaamacadda Stanford ee California sanadkii 2002 oo ka mid ah jaamacadaha ugu caansan ee teknoolojiyadda. Andrew wuxuu ka mid yahay aasaasiyaasha Google Brain, Landing AI, DeepLearning.ai. sidoo kale waa mid ka mid ah aasaasiyaasha Coursera oo ah madal barasho oo online ah oo bixisa koorsooyin. Hadda Andrew wuxuu professor ka yahay jaamacadda Stanford, wuxuuna wax ka dhigaa qaybta computer science-ka. Qofka shanaad waxaa loo yaqaanaa Demis Hassabis. Demis Hassabis wuxuu ku dhashay 27 Julaay 1976 magaalada London, UK. Wuxuu PhD-giisa neuroscience ka qaatay University College London oo ah mid ka mid ah jaamacadaha ugu sarreeya dalka UK. Demis Hassabis waa aasaasaha DeepMind, shirkad AI oo horumarisa barnaamijyada caan ah sida AlphaGo. Go waa ciyaar guddi ah oo la mid ah ciyaarta chess-ka marka loo eego in labada ciyaartooy ay isticmaalaan xeelado caqliyeed si ay u guuleystaan. AlphaGo waa computer program kaasoo ku takhasusay ciyaarta Go, kaasoo adeegsanaya AI si uu ula tartamo ciyaartooyga kasoo horjeeda ee dhilaya ciyaarta Go. Demis Hassabis hadda waa CEO-ga Google DeepMind. DeepMind oo ah markii hore ahayd mid madax bannaan, hadda waxay hoos timaadaa Google kadib markii ay iibsadeen. Tani waxay u ogolaatay DeepMind inay hesho taageero dheeraad ah si ay u sii wado horumarinta teknoolojiyadeeda. Demis Hassabis wuxuu helay abaalmarino badan oo ay ku jirto inuu noqday xubin ka tirsan Royal Society. Royal Society waa urur caan ah oo UK ka dhisan oo taageera saynisyahanada. Waxaa xubinka noqoshada loo arkaa sharaf weyn oo dhinaca sayniska ah. Muuqaalkeena maanta intaas ayuu ka egahay. Fadlan gambaleelka fursi ee muuqaalada dambe aysan ku dhaafin. Nabadgelyo.